waa xayawaanka keliya aan khiyaamin xaaskiisa, baarina oo ah hooyadii iyo Aabihi. xayawaanka loo yaqaan yeygu intuu nool yahay oo dhan wuxuu ku koobnaadaa hal dhadig. lagama yaabo haddii lamaantiisu ay dhimato inuu hawaysto mid kale amba tu kale inuu guursado. sidoo kale wuxuu baari u yahay waalidkiisa, wuuna daryeelaa markay weynaadaan, cunto ayuuna u geeyaa. haddii aad disho yeyga, isha ayuu kaa eegayaa ilaa iyo intay naftu ka baxayso. lagama yaabo inuu kaa sii jeesto. soo dhow mar kale daawade, waanigoo ah Nadre Siciid. laga yaabaa inaanad mar kale arag, haddaba isoo falowgaree imaka iguma khasaari doontide. haddii aad hore noola joogtayna sharaf ayaad leedahay. xaqiisa si videogan adigoo like saaraya. mahadsanid. dabeecadaha cajiibka badan uu leeyahay xayawaanka loo yaqaano yeyga waxaa ka mid a yeygu haddii uu kusoo baxo xoolo wuu wada dilaa dhammaantood, xitaa isagoon cunaynin kama tago ilaa iyo intuu wada dilayo. waana dabeecadihiisa mid ka mid a. yeygu ma cuno baktiga xayawaanka iyo dadka toona, keliyaata wuxuu cunaa wuxuu gacantiisa ku dilay. waxay u socdaan raxan kastaana waxay leedahay hogaamiye, oo waa halka laga keenay magaca alfa. koox ayay u nool yihiin, boqorkoodana waxaa la dhahaa alfa, boqoradana luuna. haddii aynu macnayno Soomaali ahaan ereyga yey halka laga keenay, waxaa laga keenay halyey. imise jeer ayaad maqashay iyadoo qof lagu leeyahay ninkaasi waa halyey? macnaheedu waa qof geesi ah oo adag. waa xayawaanka ugu caqliga badan xayawaanada kale, wuxuuna u dhaqmaa qaab u dhow siday bini'aadamku u dhaqmaan. yeygu waa xayawaanka keliyay adag tahay in la rabaysto. maaha xayawaan rabaysmaya, sidoo kale uma hogaansamo tababarka amba in la tababaro. wuxuuna jecel yahay inuu maskaxdiisa ku socdo oo aanu amar qaadan. guud ahaan yeyda adduunka ku nool waxaa loo qaybiyaa 2 nooc oo kala ah: qaar leh midabka dambaska oo kale oo asal ahaan kasoo jeeda qaaradda Yurub iyo waqooyiga Ameerika. kuwo kalena waxay leeyihiin midab casaan xiga oo gaar ahaan iyaguna kasoo jeeda gobolada Ameerika ay ka midka yihiin Texas iyo Pennsylvania. labada nooc waxaa aad u weyn nooca hore ee leh midabka dambaska. cimrigoodu wuxuu gaadhaa 6 ilaa 8 sano, ugu badnaan 16 sano. dherarka yeydu waa 120 ilaa 200 oo sentimitir, halka culayskooda uu gaadho 36 ilaa 79 kiilo. sidoo kale yeydu waxay leeyihiin 78 hidde-side iyo 42 ilkood. waxaana la sheegaa badanaa sidka yeydu inuu gaadho 63 maalmood. badanaana waxay dhalaan 4 ilaa 6 ilmood, kuwaasoo ku qaangaadha 3 sano. xayawaankani wuxuu ka mid yahay dugaaga hilib cunka ah. yeydu badanaa waxay u dhintaan dhaawacyada kasoo gaadha ugaarsiga amba dagaaladay galaan. way adag tahay in la rabaysto sababtoo ah waxa isbedela dabeecadihiisa. waad ku mahadsantay daawade haddii aad nala soo gaadhay ilaa iyo dhammaadka muuqaalkan. fadlan xaqiisa si videogan adigoo like saaraya. nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu taxan. waa inooyo mar kale iyo videoga kan xiga.